dalbo Little Taxi raaxa leh oo ku hel muddo ka yar 2 daqiiqo. hadda kala soo deg Little Play Store-ka iyo App Store-ka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقة أدنى لرادة وحنا كنا ولاي سويدن. Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay si kan xiriir fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga. Transfer Galaxy waxaan u doortay sida uu u sahlan yahay iyo sida uu u dhaqso badan yahay. حبي أبو أنت هذا إلى هذا نيكي حرسي يا محمود تبع سنين متابعيها حبيبتي أبي قال هذا هو والله الله لكن أرين كلا قريه كتاعن أو حلو رادنا أيوه لكن هذا الكادو حقوق يقف مسؤوليتك عن الرأي استري ما يا حبيبتي ساس معها هورا ما تقول كل أبطال أنت سوق هذه هورا نومو أجي سو عفماتك هذا يشكي نولش هذا جيفك هذا أنت هذا برد هذا سوا والله يا حبيبتي كل شيء ما جرى قري هو اللي جوجا قري ولي جوجي جري قري أقصى بربارة جوجا سو هذا الإستر أم بهند غير كذا كل حجرتها قري هذا جوجتها سمعها لا حبيبتي وقتي أساس عليه وقتي قف بوسك أجيبه هنا يا ما جرى وأو يخف بوسك يبو حين نسجن أستر حبيبتي ديار موت أنا أقدر بين قوس الخلو وسوق لا هاي إن أنا نرشين أسلب بلابنا عند إن هريرك هذا بتد هبون أبايا هاي سيدي طهي muddo 30 daqiiqo waliba qof meel uma fadhiyo dad ma istii karaan gabadhan waa laga soo daayada jacaylka horeeyaan waxay u maleynayaan labadeenna shukaansanayna wali gabadha meel isla fadhiyaan maxaa kale oo la malay karaa aad baa la socotaa Soomaa warkiisiba maalin hore akhbaar fiican ay sheegto waan ku farxay arintan ku sheegay qof ama u sheegtay leh maya maxay balnaaba ka qaadmo Jamal mis maqasheen telefoon ba igama qabanayo aniga garanay sabab telefoonka kaga qabanayn maxay tahay sababta haboon meesha ay joogtay ayuu ogaaday haboon meesha joogto ogaada xagee joogtaa intuu ka helay haboon aniga ila joogtay suweer abuu ku bariya kaftanka iga dhaafno Jamal haboon muu helay may wallahi kaftan maahan haboon aniga yahay xagee ku haysay gurigeyga hay maxaa ku dhahdaa haboon halkaas ruu noqday walba way ii sheegtay arintana meeshaasi ku soo dhawaatay macquul ma ahan sidee ku dhici kartaa laakiin sidaan ay maanteeda wax sameey ma aqaani meel wax ka bilaabo wixii run ay wixii been xataa bakala aqaan inta ka badan hibo hada runtii hasan maanta kadib cidna been kuma sheegi karto aboon wax ka xun ma jiro mar haddii waalidiinta iska keensoo tuureen kuwa waalidka ma ahayn waalidiinteeda dhabta xataa way soo tuureen maxaa farqiga u dhaxaya marka qof binaadan oo irabo malaan abooniyada khayr u sheeg macaanto jamaalkii aan jeclaan wuxuu igu nacay maadaama aniga reerkayga la aqoonsan waayey dadkii aan jirsanayay dhan meel codlay soo dhigeen bas waa laakiin qaybtaas nolosheeda way ka soo dhawaatay marxaladan waa ka gudbaa reerkayga ma laga yaabaa inay nool yihiin magaaladan lama wada dhiman lamana wada noola
waaye intaan u raadiyaa reer aniga jiritaankooda xataa aan waxba kala soconin. habboon weli waqtiyaa haysanaa tan waa bilaaw cusub. ma laga yaabaa ayaga inay soo raadiyeen ma i rabaan inta igu og yihiin. su-aalahaasoo dhan jawaabahooda waxaa heli karnaa markaa reerkaaga helno. intee wax ka bilaaba ahido inaa nasatid oo kasoo dhawaatid gurigeena taxbaaniska markaasaa baadi goob galeynaa garabna waa heleynaa. xabtay kasoo dhunta bilaabay ma aqaan qof yaqaan oo in la helaa. aniga og qof yaqaano laakiin marib uu jeeyay inaan horkeeyo. waay habboon familkaaga saa u heshid wax walba waa inaa u sameysaa. ay macaanteeda aamus barya oo nacanto. maxaa daran oo ooyeysaa? Way habboon waxay soo wacday. Wax kastana way i weydiisay wixii jira. fariiso bal. adiga yaa ku dhaha sheeg sirta dadka u qarsooneed. Hooyo, ani ma sheegin. Bas waxay ii soo wacday inay iga xaqiijisato. hadda ma noo qabtaa habboon? Haa, way nabad qabtaa. haddii ogaato maxay samaysay wax u jiraa marka? Maxay sameynaysaa hooyo? Miskiintu iska ooynaysa. qalbiga ay xanuunjisa. adiga waa wax dembi ku malay taas. waayo arrintan 20 sano qarsaneed. laakiin ani saaxiibtay ahayd Soomaa way aamintay. runta laakiin haddii arrintan la soo bandhigay waxaa laga rabay reer ducaale khaasatan oo ducaale iyo amar inay soo bandhigaan. haddii laga ogaado cidaan ayaga ahayna dhib kale keenaysa oo hor leh ee habboon u sheegay. ma aqaan laakiin waxaan u malaynaa suweer inuu u sheegay. ma balaaya qabiil guriga gabadha ku qarinayo lagu jiilay. haa balaaya ku dhacaas hadduu ogaan lahaa dhibka uu noo geystay gabadhiiba sii dheeray. hooy hadda habboon ma soo laabanayso miya? way maxaan ka ogaa waayahay? waayay cidaad adiga ma ka warqabtaa? habeen reerkeeda cid wax ka ugu jirta beeraatay. markay yareeda la baafiyey wax ka soo jawaabo ma arag ilaa haddana sida lagu aaminsan yahay. kowde reer ducaale anaa la waramayo adigana baxa iska seexo. albaabka hore igu sii xir. waad ii sheegtay Jamaal inaad jeceshahay balse aniga kuma sheegin habboon inaan jeclahay. waa sababta igu aamin laada. waxaas aniga ma aaminayo. habboon meelay joogto miyaad ogaatay? habeenii maalin ay Jamaal habboon la raadinaysa waxaad sheegaysana suurtagal maaha. waa runtaada. anigoo og habboon gurigayga inay joogto ayaan bannaanka raadinaya. qorshahaaga muxuu ahaa? weligayba waan rabay habboon maadaama uu labada xiriir u ka dhexeeyey. waan waayay fursad aan ku shukaansado. way soo raasatay waan caawiyey. fursad ayaan raadinayay aan ku helay ayada. Jamaal hadduu ogaado maxaa dhacaya? Jamaal uu ogaaday gurigayga inay joogto. guriga ayuu tagay ayadana guriga way ka tagtay. hadda labadeena way naga wada maqan tahay habboon. hal ixsaan ii samee. Jamaal gacanta ku dhig. habboon aniga waan heli doonaa. ilaan waxaa iskaga kay dhigaysa qof i caawinayo. adigaa dantaada wata soo maaha. labadeena waa inaan isfahanaa. hal dan ayaa naga dhexayso. Jamaal gacanta ku dhig. anigana habboon waan heli doonaa waana calfan doonaa. markaan haddaa gacanta ku dhigto yaaba la ogaan. inaken gurigaada ayaan kusii geynayaa. aniga aabba habeenadan wayuu kacsan yahay inaan dhaqsadaan u baahana.
ducaale gabadhii habboon ahayd idil ay la soo hadashay haddayd habboon ma nabad qabtaa habboon caafimaad qabtaa walaashii habboon waayahay aan wax idiin sheegna warka naga sugo waayahay bal noo wad waxay sheegtay meeshii ay joogtay inay ka wareegtay haye waxayna tiriyaan la ii walwalin oo xaggee u wareegtay marka la iima sheegin teeda kale habboon wax walba way soo ogaatay maanta kadibna wax caad ka saaran ma jiraan walaashii habboon caadka ma saaranta xaggeen aadi war sug bal saas maahana oo say ku soo ogaatay waxaan kolley way soo ogaatay muhiim maaha siday ku soo ogaatay waryaatan oo kala arkay waa ka daroo dibi dhalay kolley hadda wixii ka dambeeya dadkay noola siman tahay habboon aday kuula siman tahay maane aniga marna ma ila sinaanayso kuwaanaan dhalay ayadaan ka jeclaa weligeedna hadal xun ima dhihin anna ma dhihin ducaale habboon aniga intaas la soo ekeysiiyey waxay tahayna anigaa ka dhigay inaan intaas dhan la soo ekeysiyaad laakiin adiga hilmaamsan tahay maanta say tahayna adaa baday adaa ka dhigay ee sidaas ugu adiga haye caawinaad ha iga sugin aniga jamaal isma arkayno shaqadaada qabsahee hawshaas aniga ii dhaaf habeen wanaagsan good night Al-Jazeera very different is the fact that it understands that diversity is more than skin deep. It's a diversity of voices, it's a diversity of perspective. A different way of looking at stories. We will still be looking at all the difficult stories, all the tough news agendas, but we will be approaching it from a slightly different way. Our job will be to go behind those glossy headlines Salma. and take a proper look at what's happening faa'iiza kaniiniga ha ii keento madaxa ay whether xanuunaya it be the Middle East, Africa, the Americas, the Far East and Europe. So the opportunity and responsibility we have as news journalists to bring those stories to our viewers in a Salma, concise, maxaa dhacay informative aabbo? and creative way just cannot be underestimated. Aabo, waqta iga daaytay. iPad-ka ku sakeeya. iPad-ka ku sakeeya jeesaawe. iPad-ka waa kuu keena ballan waaye qolkaada aad ani qolka fadhiga u socdaa Haye, abo. ayaabo sidee tahayna
madax maa zaid ku xanuunayo ها aabo habboon way la soo xiriirtay fariin oo ii soo dirtay aabo qalad ayuu naga dhacay mar kale uma laabinayay maqabliis oo ku baryaynaa macaan iska keen caf waa qaldanne dambe qaladkaan oo kale uma laabaneen عرسي شقة هذه الثانية طول السعودية ريسب والوحير يورنا بساته ما شاء الله وحيانا هو يا حالي ورق يقول تطابت ما حكى جرى وركاس أبانا هو يوش يا جاي أي هاجرت قبر أسبوع سنة أنت قولي كم أقنع أي marka hadda ay joogto guriga reerkeeda joogta waxa lagu sugayaa inaan meel geesto waa gartay adinkan oo naas aragtiin waaye aba dib ma leh reerku waa isbaran doonaaye maxaa kuu qorshaysan adiga baliisha wallahi saa ogtahay hadda shaqo bilooway waxbay ma qorshaysana qarash la-aan jiro marka waxaas dhahaya inaa gurigaan dhinaca ka dejiyo waa gartay gabadha ma kaa ogolaatay teeda kale waa ogtahay hooyada qof aad u kulul waaya gabadha iyo reerkeedaba waxsma weyno waxaa rabana igama diidayaan waa gartay waxaad yeelaysaa bal shaqadaada iska aad waa ogtahayna aniga beryahan habboonaan ku mashquulsanahay arrintaadana arrin aad muhiim u ah waaye iska shaqo tag insha allah yaa subax wanaagsan aabo subax wanaagsan aabo intee u socotaa xafiiskan socdaa maa quracad maanta qurac maro jamal wax tallaabo aad qaadi kartid malaha arrintan anaa ku jira anaana ii dhaafaysaa mii garat dhallinyaranimo yay ku qaaday insha allah waxba ma sameynaya waa balan فايزة اقرا على النقو شلay si qaldan aan kula hadlay waa xanaaqsanaa adoo xanaaqsan qof looma imaado hadana waxaad rabtid in la iska dhaho ma laga tago waa runta laakiin aniga waxba lama soconin sidoo kale adii suwirna walaalo tihiin daraad ka hor ma ogeen aniga badaan ogaa lahaay gabadhaas gurigeena ma sii joogteen laakiin Zubeer been ayuu ii sheegay haye Zubeer muxuu kale kuu sheegay ma kuu sheegay sababtuu saaxiibkiisa u khiyaanay idil inaad raalgeliso maad u timaade mise inaad wax iga ogaatid inaan ku raaligeliyo sidoo kale inaan kula sheekaysto labadaba waa noo imaaday raaligelintaada waa kaa aqbalay hadda buugaan akhrisanayaa marka la sheekaysanayna waa mahadsantahay waa kaa sii tagayaa allah ma hadle marba haddii gabadha warkeedii la helay waxaana la yidhaahdaa geesinimadu waa in yaroo aad lugaha dhulka ku xajiso
shalay arrinta si midhaha bardahaynu duuduub ku liqnay mar haddaad warkaas noo keenteenna waa aad baan ugu faraxsanay waana soo dhoweynaynaa walaalkeena xaaji nuur soo sheegay waaye alla aamin ma iisho ilaahana furtay mahad oo dhan ilaahay baa leh nin oomanna waxaa deeqda biyahan hoo oo keliya marba haddii gabadhii warkeedii la helay nagu filan aniga waxaan markhaati ka ahay inaad tihiin raggoda marka loo fiiriyo xaajada sidaad noola dhaqdeen waxayna muujinaysaa inaan nahay dad aad isugu wanaagsan oo weligood is yaqaanay oo muddo dheer deris ahaa iyo degaan wax kale oo ii haray ma leh inaan idin idhaahdo waa mahadsantihiin maahan ducaalo waa idinka qabnaa idinkana waa mudan tihiin wax isweydiis ma xuma wax isweydaarshigaa xun si wanaagsan ayaa wax noo weydiiseen nagana sugteen intaas walaal fiican un baa laga helaa waa sax waay waxaase ii dheer waa tii shalay wiilashu ay isu gacan qaadeen wiilkaygana waa nin aad u degan oo iga ballan qaaday wax dhib oo dambe inuusan geysanaynin cajiib cajiib ka waran waxba kama ogeen inuu gacan qaad dhacay waa khatar weeye gabadha keliya inaan ku mashquulno ma aysan hayn gabadha keliya inaan ku mashquulno ma aysan hayn arrintaasi waa arrin dhibaato weyn keeni karta odaygeedii oo marba haddii wiilashii ayna waxba isgaadhsiinin waxay sheegteen oo dhibhayna una jirin waxaa ila qurux badan inaynu si fiican ula hadallo arrintana halkaa aynu dhigno waa saas waaye aniga kolley wiilkayga wax dhiba ma sheeganaynin arrintana waxay ku fiican tahay inaan aniga iyo samantar si hoose aan u wada galno oo ugu kuurgalno insha allah kheyray ku dhammaanaysaa alxamdulilaahi weye arrintii waa noo fududaatay meel fiican oo maaragtay aan rajaynayno ilaahay inaan ka helnana waa joogtaa markaa faatixada aan maranno بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نقر له الوحي فرحك حن كانوا سودايحين قرية كلو جوجو في حاول إنه ما لا فيرنا عجائب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ويلكي هاي سك عليكم السلام عندنا السلام يا مفان أنت ما السلامة أنا أيد احترامين أنا قد أحسوي أحمد واجا يردوني كلون ديال قريجير لا ويلك ساس محاولة هي صعب واي حوري تم أستغرق هاي أدم حكا فلانة وراني وحكم فلانة معانا قد كسير كسير يورد أيوة حالة هذا حور معنا في عن الله الحمد لله ما شاء الله سيت هاي صبر كان قارمو أهم خانة صور كان مفوضة ها سنة سكول كنا قدام بسوا هيبا يركا كل شيء واي حبري هذا الشيء مفروض بدي أعطوك كل خبصة على هالدنيا ما يبقى اسم كل كيلو اسكب حانة هاي السلام وقع خد سوف اسم جرت مياه gabadhaan wajigeeda waa igu yaallaa abay xagee ku ark maya buu hore ma isku arkin maanta isku keen horeys axmed gabadhaan aan ku baro waa saaxiibtay iskuulka magaceedana haboon allah haboon barasho wanaagsan ana axmed yaallah barasho lamid ah iyo warkiisii war maayo la saaxiibo maxaa haysaan wallaahi axmed joogiya عيب يا أحمد ده كان لكن حشو عيب أحمد